hablaha jooga wadanka Norway gaar ahaan magaalada lagu magacaabo Stavanger ayaa waxay deeq lacag soo gaarsiiyeen bukaanada ku jira cusbitaalka magaalada Laascaanood. Deeqdan ayaa waxay dhamay $700 ay ugu talagaleen in ay ka faa'iideystaan bukaanada ku jira cusbitaalka guud ee magaalada Laascaanood. Deeqdan ayaa waxaa loo soo wakiishay Cali Cabdinuur Xaashi oo kamid ah odayada magaalada Laascaanood. Cali ayaa wuxuu ku wareejiyay agaasimaha cusbitaalka Laascaanood Dr. Ilka Case oo halkaas qaybiyay dhibanayaasha ku jira cusbitaalka guud ee magaalada Laascaanood. Waxa iyaguna halka ka mahad celiyay qaar ka bukaanada oo sheegaynaya uga mahad celinayaan hablaha jooga wadanka Norway. Bukaanadan ayaa waxay dareemeen isbedel dhanka nolosha si ay bilaabeen warbaahinta ka hawlgasha gudaha magaalada Laascaanood sidii loo baahin lahaa dhibaatadan xaddiga faraha badan ee dadka jiifa isbitaalka qaybihiisa kala duwan gabdho muslimiin oo deeq bixiyaal ah oo degan dalka Norway magaalada Stavanger $700 bay soo direen iyadana loo qaybiyo dadka dhaawaca ah ee meesha jiifa. marka waxaad u heshaan qofkiiba $830 sideediinan qaybta tan TB-da waxa weeyaan waa 304 iga qabo story iyo dadnimada ka mid tahay inay dadku dareemaan dadkooda dhibaataysan ee jiifa isbitaalada waa nasiib darro horta inta waxa la soo diray dumarun baa soo diray kii rag ahaa meel jiro lama hayo وين يقرب السؤال بين الدين والمسا جيران kaga hadheen de tabaruca dadkooda had iyo jeer hablaha u soo fidinayaan garan meelna waxay kaga hadheen laakiin de su'aasha ku taagan waxa weeye waa la sugay inaad idinku sida gabdhahaas ay tabaruca u soo bixinayaan sadaqada ula soo baxayaan aad idinku ula soo baxdaan oo soo tartaan dadkiina tabaalaysan ee jiifa isbitaal aad iyo aadna runtii waa ugu mahad celinaynaa bal waxaad ka warantaan inta la idin soo caawinayay wax isbedel noloshiina ma ka dareenteen maadaama dadkani ay had jeer jecel dadka dhibaataysan inay soo caawiyaan waan ka dareen aad iyo aad ilaahay loogu mahadnaqayo aniga nafahaantayda marka aan ka warramo muddo cadaalto 4 bilood oo wax dhiman baan qaadanayay farahan way iduumeen qaybta TB-da ee talafaha ay ugu dhacday waa gartay la farahan way uguudee barbar dhanbay qabsatay oo i raacday lugtuna dib bay u laabantay bismillaahir rahmaanir rahiim xaliyadana Cali Cabdishaam baa la yiraahdaa aad bay u mahadsan dadkana soo caawinaya marka hore mahad Ilaahay baa leeyana waa mudan yihiin waxaweyaan daawadan aad iyo aad baan ugu raysanay caawimadana ay noo soo dirayaanba aadna waa ugu raysanay sida runtii waan gartay marka wax isbedel wanaagsan baan ku haynaa aad iyo aad u wanaagsan xagga caafimaadka iyo xagga nolosha aad wanaagsan Jaacal Maxamed dadka lacagta noo soo diroon caawinaya Ilaahay baa mahad leh aad baan ugu mahad celinaynaa isbedelkeeduna aad iyo aad buu fiican yahay waan wanaagsan daawaduna aad bay wax noo tartay dadkaasina Ilaahay waxa taray si wanaagsan bay noo taray Axmed Hirid baa la yiraahdaa si fiican bay wax noo tareen gacantii labaad way lacagta dadka oo mahad celinayna Ilaahay baa mahad leh waxsan ugu ducaynay wixii la siyaabo de nin buka waa la yaqaano wax bayna tareen waa gartay marka xoogaa xagga nolosha uu idinka xagga nolosha sidee tahay ma nolol baan uga horeysay waa gartay nooga ma horeyn waka khayr baan loo rajaynaynaa iyaga iyo wixii waalidkooda iyo wixii islaamay waxna tara hadda xanuunkaagi wax isbedel ma jiro xanuunki wax isbedel waa shaa waa gartay fiican sida hore marka waa daantaa sida waan dhamaa marka xanuunka lagu sheegay TB-da dawadiisa ma qaadataa waan qaataa toddobaadkii mar baan siiyay toddobaadkii mar baa lagu siiyay marka bal ka waran wax lacagta lagu soo gaarsiin wax isbedel xagga nolosha ama ka dareentay cuntooyin ay ku iibstaan lacag saas ay siisaan odayun baa farta saaraa caruurta abood waa gartay dabadeedna isagoon baa caruurta ku maamula gartay أنا عرفت أنت وحيد سكري واقع. محو هاوحي بالك كونا. أبيس. ها مركب مقول جاك شوت. أذوه ده. مركب مقول دار سما. يا. واقع هذا قد شيفا. بيمتى. والله محمد كين ما هي. وحاسر وكناع. واقع. iyo maxaan ku sheegay typhoid marka baadiya laga keenay baacana laga keenay xaaladiisu waa serious hadeerto waxaan ku sameynaa garanayna meel walbana waa marin irbada horena wuu qaato marka horena waa jadeeca ku dhacday marka xanuunkiisa hadeerna waa kaas waa liitaa ilaahay waa marka hore jadeeca ku dhacday marka hore jadeeca ku dhacday كرينولول S24 TV حرونته وين عسبتالك مقالة الله سبحانه